السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale asxaabay kanaalkeena ogaal cusub. bal ka waran daawada shakhsi awooday inuu kasbado uu shaqaysto lacagtiisii ugu horeysay isagoo jiray daada 12 jirka. maxaa laga filayaa qofkaasi inuu samayn doono marka uu weynaado iyo mustaqbalka? waxaa jira dadka qaar oo u arkay inuu waalan yahay, waxaana jira qaar kale oo u arkay inuu yahay amalka iyo rajada kaliya ee bini'aadamku ay leeyihiin, maadaama uu sheegay inuu geenayo uu u dirayo dadka meerayaasha kale. muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa qiso guulo oo ka gedisan dhammaan qisooyinka guusha. qisada mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu cajiibka badan uguna hanka weyn oo lagu tilmaamay inuu ka mid yahay dadka ugu muhiimsan caalamka marka la eego guulaha degdega uu gaadhay iyo sidoo muddada kooban ugu xaqiijiyay inuu ka yimaado wax la'aan kuna noqday shakhsiga ugu maalqabeensan adduunka. waxaan ka hadli doonaa qisada Elon Musk inagoo kaashanayna buugga laga qoray qisadiisa ee lagu magacaabo Elon Musk, Tesla, SpaceX iyo raadinta mustaqbal wanaagsan. wuxuu dhashay Elon Musk sanadkii 1971 isagoo ku dhashay magaalada Pretoria ee dalka South Africa. aabihii wuxuu ahaa injineer korontada, halka hooyadiina ay ahayd gabadh dhalatay Mareykanka laakiin asal ahaan kasoo jeeday dalka Canada. sidaas darteedna Elon Musk wuxuu sitaa 3 dhalasho oo kala duwan. waxaa lagu yaqaanay Elon Musk ilaa yaraantiisii dabeecadiisa qariibka, isagoo mararka qaar ahaa mid meel iska fadhiista oo aamusnaada cidna aan u jawaabin, cirkana eega isagoo aan mooday inuu ka go'ay adduunkeenaba uu la haysto meel kale. arrinkaas oo ahaa arrinkii ka dhigay qoyskiisu inay uga shakiyaan inuu dhagala yahay wiilkoodu, laakiin kadib baadhitaano dhowr oo lagu sameeyey waxaa la ogaaday inuu ka nabad qabo dhanka maqalka. laakiin dhakhaatiirtu waxay u sheegeen in wiilkan yari uu leeyahay xasuus fotograafika oo taasi ay tahay sababaysa inuu fikiro uu sawirto waxyaabo badan. carruurnimadiisii wuxuu ahaa mid aad u jecel wax akhriska, wuxuuna ahaa mid doorbida kala noqoshada naftiisa iyo inuu ku qaato wakhtigiisa wax akhriska, isagoo ahaa mid wax akhriyi jiray ku dhowaad 10 saacadood maalintii. wuxuuna sheegay in markuu ku jiray sanadkiisii 4aad ee dugsiga hoose inuu dhammeeyey oo akhriyay dhammaan wixii buuga ee yaalay maktabadda iskuulka. arrinkanna sidoo kale wuxuu u saameeyey noloshiisa dhanka aan wanaagsanayn, isagoo mar walba ahaa mid kala kulma carruurta kala dhibaatayn, iyadoo mar koox carruuro ay wax wada dhigan jireen ay ka tuureen jaranjartii iskuulka, sidaasna loo geeyey oo loola cararay isbitaalka si degdega. laakiin Elon Musk isagoo ahaa mid sidaas badan wax u akhriya haddana ma ahayn wiilka iskuulka ugu waxbarashada wanaagsan. qaar badan oo ka mid ah carruurtii wax wada baran jireen ayaana ahaa qaar ka sareeya dhanka waxbarashada, laakiin Elon wuxuu bartay carruurnimadiisiiba sidii uu kala saari lahaa wixii u muhiima iyo wixii aan u muhiim ahayn. markii uu jiray daada 9 jirkana waxaa kala tegay labadiisii waalid, isagoo xilligaasna raacay isagoo kula noolaaday aabihii dalka Koonfur Afrika. markii uu jiray daada 10 jirkana wuxuu bilaabay danaynta uu danaynayo caalamka tiknoolajiyadda, isagoo xilligaas aabihii u soo gaday kombiyuutar. wuxuuna awooday Elon Musk inuu naftiisa baro programmingka, isagoo awooday markii uu jiray daada 12 jirka inuu sameeyo game iyo ciyaar lagu magacaabo Blaster. wuxuuna galay heshiiskiisii ganacsi ee ugu horeeyay xilligaas, kadib markii uu ku gaday ciyaartiisii uu sameeyey lacag gaadhaysay $500, taasoo noqotay bilowgii Elon Musk uu u dhaqaajiyey dhanka ganacsiga iyo shaqooyinka. kadib markii uu ka baxay dugsiga sarena wuxuu tegay dalka Canada, isagoo jiray xilligaas daada 17 sano jirka, isagoo halkaasna ka qaatay dhalashada iyo baasboorka dalka Canada. wuxuuna ahaa xilligaas mid la nool qaraabadii hooyadii kana shaqeeya shaqooyin iska caadiya si uu ugu maareeyo naftiisa. intaa kadibna wuxuu aaday Mareykanka oo wuxuu galay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee Mareykanka, jaamacadda Pennsylvania, isagoo ka bartay halkaas fiisigiska iyo ganacsiga isku mar, wuxuuna ka qalin jabiyey labadoodaba hal mar. intaa kadibna wuxuu u wareegay jaamacadda Stanford ee ku taala gobolka California si uu uga qaato halkaas shahaadada PhD-ga, laakiin wuu iskaga baxay markiiba jaamacaddaas. sababta ku riixday arrinkaasina waxay ahayd soo muuqashada ay soo muuqatay shabakadda internetku, isagoo go'aansaday inuu ku filiyay internetka fikradihiisii ganacsi oo uu ka mid noqdo dadka ka faa'iidaysta fursadaha hantiyada ee la socda internetka. sanadkii 1995 wuxuu u qaaday Elon Musk tallaabooyin yaryar dhanka maalqabeennimada, kadib markii ay bilaabeen isaga iyo walaalkii inay aasaasaan shirkaddii Zip2 oo ahayd mid dadka siisa maabka iyo khariirada magaalada. isla markaasna waxay ahayd shirkaddan yari mid samaysa suuqgeyn ay suuq geynaysa jaraa'idada, waxayna ku bilaabeen Elon Musk iyo walaalkii mashruucan lacag ay ka qaateen waalidkood oo gaadhaysay $28,000. wuxuuna ku sifeeyey Elon Musk inay ahayd marxalad aad u adag. sidoo sheegayna wuxuu sheegay inuu dhex siixan jiray xafiiska
kuna qubaysan jiray musqul uu leeyahay dhismuhu. waxayna haysteen hal kombiyuutar oo walaalkii uu subaxii wax ku gadi jiray, isaguna uu ku samayn jiray programmingka habeenkii. waqti kadibna waxay bilowday shirkaddii yareed inay weynaato oo ay ballaadhato, iyadoo sanadkii 1999 shirkadda lagu magacaabo Compaq ay iibsatay shirkaddii Zip2 kuna iibsatay lacag gaadhaysay $300 milyan. sidaas ayuuna ku noqday Elon Musk milyaneer isagoo maraya 20-meeyadii cimrigiisa. dabcan kuma istaagin halkan dadaalada uu sameynayay Elon Musk, wuxuuna sameeyay shirkad samaysa caymiska lacagaha iyo bangiyada uu ka dhex sameeyay internetka dhexdiisa, taasoo uu magac uga dhigay X.com. kadib markay xifaaltamayeen shirkaddan iyo shirkaddii lagu magacaabayay Confinity wax ka badan hal sanana, ugu dambeyn waxaa la isku daray oo shiraakoobay labadii shirkadood iyagoo noqday shirkadda hadda loo yaqaano PayPal. wuxuuna noqday xilligaas Elon Musk maamulaha shirkadda, laakiin muddo kadib waxay iskhilaafeen raggii ay wada shaqaynayeen, taasoo keentay in laga eriyo Elon shaqadii maamulaha shirkadda. sanadku markuu ahaa 2002 shirkadda eBay ayaa iibsatay shirkaddii PayPal iyadoo ku gadatay lacag gaadhaysay $1.5 bilyan. wuxuuna helay Elon Musk xilligaas lacag gaadhaysay $250 milyan. isla sanadkaasna wuxuu u jeestay Elon inuu maalgashado caalamka hawada sare, wuxuuna aaday dalka Ruushka wax ka badan hal mar si uu ugala soo hadlay inuu ka soo gato gantaalada loo diray hawada sare. laakiin Ruushku waxay ka dalbadeen Elon Musk lacago waaliya, sidoo kalena way ku jeesjeeseen iyagoo u sheegay inuu bilow ku yahay tiknoolajiyadda hawada sare. sidaa darteedna wuxuu go'aansaday inuu isagu samaysto gantaaladiisa u gaarka, isagoo ku maalgashaday lacag gaadhaysay $100 milyan oo ah lacagtii uu ka helay shirkaddii PayPal inuu ku aasaasay shirkaddiisii cusbayd oo ugu magacdaray SpaceX. shirkadana u gaar ahayd iktishaafidda hawada sare, hadafkiisuna wuxuu ahaa mid aad u fog oo aad u qariiba, kaasoo ahaa in laga aasaasi karo meerayaasha kale uu ka mid yahay meeraha Mars, meelo ay ku noolaan karaan bini'aadamku. sanadkii 2004 Elon Musk wuxuu tijaabiyey arrin kale oo halisa, kadib markii uu ku maalgashaday lacag gaadhaysay $70 milyan shirkadda Tesla oo ah shirkad u gaara soo saarista baabuurta casriga ah ee ku shaqeeya korontada, isagoo intaa kadibna loo doortay inuu noqdo shirkadda maamulaheeda. sanadkii 2006 wuxuu aasaasay shirkadda lagu magacaabo Solar City oo ah shirkad ka dhalisa habaysana tamarta qoraxda. sanadkii 2013 wuxuu shaaciyay Elon Musk mashruuca lagu magacaabo Hyperloop, kaasoo hadafkiisu yahay in la sameeyo qalab dadka qaadaya oo u kala gudbinaya magaalooyinka kuna geynaya waqtiga ugu dhaqsaha badan, iyadoo ay raacayaan dadku qalab dhex maraya meel dhulluba ah oo ku socda xawaare aan caadi ahayn. Elon Musk wuxuu ka mid yahay dadka dabaqay ee kaga shaqaysiiyay si dhab ah waxa loo yaqaano artificial intelligence-ka ama maskax bandida gacan ku samayska, isagoo ku dabaqay baabuurta ay soo saartay shirkaddiisu ee lagu magacaabo Tesla, iyadoo lagu sheegay inay leeyihiin baabuurtani ammaan iyo feejignaan iyagu iswadi karaan oo ka badan feejignaanta iyo ammaanka qofka caadiga. sidoo kale sanadkii 2019 wuxuu shaaciyay Elon Musk inuu dayax gacmeedyo u diray hawada sare oo uu ka shaqeynaya mashruuciisa cusub ee uu ku magacaabay Starlink, taasoo ay ku doonayaan inay soo saaraan internet xawaarihiisu aad u sareeyo oo gaadha adduunka oo dhan. wuxuu xaqiijiyay Elon Musk guulo waaweyn, wuxuuna awooday inuu dhabeeyo uu xaqiijiyo fikradihiisa u eg waalida, wuxuuna noqday sanadkan ay ku jirnay 2021 ninka ugu hantida badan adduunka, iyadoo sidoo kalena loo doortay mid ka mid ah 100 qof ee ugu saameynta badan adduunka. intayna dhammayn muuqaalka igula wadaagana daawada dhanka commentiga aragtidaada ku wajahan ninkan. intaasi inuu ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. waad mahadsan tahay.